oo dastuurka cusub ee 2010 la imaaday hadana gudoomiye ayaad ka noqotay qaabka gudoomiyenimada aad ku heshay labadaba dad siyaasiyiin oo ka hormaarsan arrimo fara badan ayaa jiray khilaaf fara badan arrimahaasi ku hareeraysan taa dad wax noo sheegto abi haduu noolaan lahaa I don't know whether inuu ogolaan lahaa inaan maartay subiyo law laakiin engineering iyo medicine iyo law waxay ahaan qof whenever used to have any hope inaan meelaha gaari karno marka waxaan ku heshay marka ogol xeedin axmanaas inuu aqoon gareysto oo meesha uu noqdo maxay leeyahay waxaan saaraynay Soomaalida waxay baahan tahay inuu qof meesha uga joogo marka axmanaas marka xubiyay aniga waxaan nahay busy ma haysto partner kali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال iyo dhageystayaal kulanti wacan wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sirta horumarka idaacadda iftiin family iskumada oo habeen walba sabti aad ka dhageysataan barnaamijka ayaa waxaan ku marti qaadnaa shakhsiyaadka Soomaalida magaca ku leh taariikhoodana marka laga sheekeeyo casharo fara badan ay bulshada kala dhex bixi karto toddobaadkana barnaamijka waxa marti inoogu ah gudoomiyaha hore ee guddiga doorashooyinka ee dalka mudane Axmed Isaaq Xasan taariikhiisa ayaan ku qaada dhigi doona muddada halka saac ee soo socda anagoo dhinacyo fara badan ka eegi doono ugu horeyn iyo ogolaada inaan ku soo dhaweeyo microphone-ka idaacadda iftiin family iskumada senior counsel noo soo dhawow kulanti wacan wanaagsan walaalahay alxamdulillah shukran wa qalmi aad baan horta u farxanahay inaan ku soo qaybgalo iftiin fm sanadii sheegana horaan raadiga waxa ka daaran always iftiin fm ma sha Allah marka inaan idin maado maanta أنا تحيي فرحت ما شاء الله أنا شرف وين أي نوت هاي تاريخ دهرة يا لاد هاي نني لا عمري سيا هاي تاريخ هذا أنا مدهر سعلو موسى كوي كر لكن سوحون بنك تتابعنا هنا سيدو كلا بوق عاد قرطة يجرى بوق هذي لقى شيء كم هذي تاريخ لقى شيء كلا لوضبه وحنا كمان كان إجوا إسكوميت أون بوق يصحاب تدو قرطة ينو حن كاوي دين دونا وجهرين أحمد إسحاق حسن حلقة دالتي يو حلقة كل دالتي أتى تحسوسون كرتو waxaan ku dhashay magaalada Burra qulqushay Burra waxaan ku dhashay 1970 waxaan ahay qof oo waxyaalo dhasheen 8 gabdhood iyo 12 wiil ma sha Allah abi wuxuu ahaa mid oo afar naagood fuqabi afar xas wuxuuna ahaa imaamka ka amsayska Burra sax marka waxaan ahay orodkii xaaska labaad ala kulli hal ku dahdo waa hal walaalihi way صح marka school marka nagaan ko yar wuxuu ahaa dadka oo waqtiga 70s oo maanta ku fikiray maanta inuu ilmihiisa school geeyo saa ogtay bariga sidoo ilmaha Soomaalida school ma geey jirin waxa loo soo jiray maanta inay xoolaha raacaan mise wax kale qabtaan صح marka aabay marka ku dii wuxuu geeyay schoolka marka aan standard 3 iyo hata wuxuu u bedelay marka inaan galo boarding صح أنا ولي أدير أو مارتي جانتريه صح مركا إلا أن كبوجي ما كوجي بولينكا سكول كلام كل لحره وقت هول ليسكا يدير جري مارتي أديركي أو أسكير صح إن أنا سجوجو وبعدي هجرو مركا حولها مركا بعدين هجري حولها بدي وحي هذا اللوضة صح يا أرجعوا مركا وحي هذا تعليم ما مقصود يصيرون محيري أنت سكول كوجي مرة لما كنت سكول لحرة وحنا أجري بديهاس صح مرة وحنا حسوستا وحالي دري جلي الله موتي لا غير بكرتها هذا حولات خير كو حجران إذا هلقوا ما شاء الله إذا جوان صح يكون حجران دور لو درا صح لا بقول صدق بقول آخر بقول وحينا مرتب وحينا كل لا إجارته أيام ما شغلوا دبي صح مركب مربى اللي يقدر كواس oo hal bil iyo barbaan waajah kaliya صح hatta meesh maartay meel oo saxan male geed baa iska aarani waa iska saxani xooli baa maartay iska ilaalini xaalada afiqir oo maartay oo shalo karso iyo wax yar oo sokor iyo maartay caareen marka waxay ahayd very difficult life asirunta صح markaan ku jiro markaan jiro meelahaas waxaan sugi jiray maartay isku in furo aad baan maartay ugu dheereed waqtigaas marka aan kan soo noqdo marka iskuulka imaadaan marka waa iskuulka marka waxaan ku baasay KCP sorry CP
waxay ahayd inaan aado Starehe Boy Center hal mar marka inta aad arintan baadiya la aaday primary miyay ku ekeed ama secondary xitaa holiday wad aadi jirtay hata markaan aado holiday markaan aado secondary form 1 form 2 form 3 ilaa form 4 wad aadi jirtay marka arintaasi saameyn dhanka waxbarashadaada iyo imtixaanaadka kuma yeelan waayo imtixaanaadka wad ku baasay jirtay maxay mid kale waxaan kala subinay waxaan ku jiray dugsi asagana dugsi waan bilaabay oo waqti aan yara oo ilaa maartay aan ka gaaray sanadii 7 waxaan ku jiray iskuulka maxaa dugsigaas marka baadiyaha markaa jirana waxaan ka soo baranay maartay un nolosha baadiyaha sax marka waxaan dhigi karaa si runtii way aragnimo iyo adeegad aan ka qaaday actually maxaa yeelay mar ana looda la jiro libax baa soo wareey waqti looda markay ay dareento libax ama raadkiis maartay oo mar meel maartay ama meel ku kaadiye ama meel marka waxay bilaabay inay qayliyaan ay santa kor u qaadaan marka aad dareemaysaa marka inuu maartay bees uu ka dhaw yahay maartay abu libax sax aad marka maartay jariica ku fureysa marka waxyaalo badan waxa jirta aan ka bartay marka waxaan leeyahay markaan ku jiray markaan subinay shaqadaas waxay dhaheen aabay iyo adeerkay iyo kuwii iga weynaayeen waxay leeyihiin libaxdu soo galo looda oo mid qabsado waa iska dhaafaysaa xaalay adiga ka muhiimsan naftada sax laakiin waxaan kala ogaaday mar haday maqlaan libax baa wiil dilay oo cune waxay isku yeeri jiray maartay all the villages dadku isku imaado marka libax maartay raadinay ilaa la dilo sax maxaa la xidhi jireen haduu ugu dhabiyo maartay dhiig banaadamka oo wuxuu noqonayaa marka waa isku imaan jiray waalidka marba ay saasu been waana fiirinay waan gartay banaanka ka tagnay laakiin waan fiirinay wuxuu gali maartay geedosiis marka asna maartay uu dagaali laakiin eventually waranka iyo maartay baa yaa lagu dilaa waa la dilay waa gartay preventas ku jirtay waxaad rabtay Starehe maad ugu dhahday markii aan bogay iskuulka waxaan ahaa number 2 yaa qaadan jirtay imtixaanaha sax marka Starehe Boy Center ayaa soo dirtay forms sax iskuulaha oo ay ka rabaan inay ka qaataan students ay u dirayeen marka wali keenay waxa ay yeereen masta xiriir fonkan soo buuxiyay waxaan imaaday Nairobi aniga abahay waxaan imaaday interview waa laga qaaday laakiin ma keenin point ay rabeen marka waxaan aaday Garissa High School waa gartay waqtigaas oo Starehe Boy interview ka doo imaadeen 1982 xilligii waxa dhacay inqilaabkii isli iyo waqtigaas Nairobi sayaad aad bay ciidan u hadsirantay waana amal xeed maartay meel oo dagaal intuu ka dhacay maartay la kala guuray gawaari guban maartay wadooyin xiran qaarkood iyo askartu maartay aad u wareegayso marka ata isli marka waxaan ku degnay meel dhaho Marian Lodge bay waxa very famous oo dadka Garissa waxay imaan jireen xagaas marka waxay ahayd runtii markii ay ma ogeen laakiin markii dambe ogaaday inuu dhacay maartay ku oo maartay dhibka uu jiray laakiin waxay ahayd aniga maana sii gelin magaalada kale maxaa waxaan doonay isli sooxii interviewna waan u lugaynay maanta isli iyo mootay Starehe iskama kala fogo waaska waxa way about 20 minutes walking صح kadib Garissa ku laabatay iskuulkii Garissa ayaad gashay secondary hiye waxbarashadii iyo iskuulkaasi soo aha Garissa High School هو سكول أدو فعلا هو قبي تو ستريمز ستريم A ستريم B مركا فومان A فومان B بقى يكرر جرين أنا مركا بحان قال فومان B مركا إلا A فوم 4 مركا بقي فوم أنا فوم 2 يا وحسب بحال هذا أنا وكعرّه مع إدريس فارح هني جينا ليبو marka aan habeenka cararayo yaan lug ka jabe arday kala isku dhacdeen asalaha marka waan jeeyo marka soo baalige su'aalka markay iga waayeen after about 2 weeks abay marka wuxuu go'aansaday inuu maartay isbitaalka ka ma iga qaadaha marka igiyo bas asagoo maartay waxay imaadeen aftiga kale way qaadeen nimadii saadi waxa liigay boolaftiin gaaris sariirta isbitaalka lagu qaaday lagu xiraha
بعد وحلي كان مid oo dadka kabo yaa waxa leeyahay balij waxa weeye saaqa agteed bas kiiba marka kabay oo maartay waan kabnay marka form 2 form 3 iyo form 4 feeska waxa ay bixiyeen waxaan ku helay scholarship maxay wiilka aniga dabeen oo ay marka soo galeen form 1 form 2 marka in kastoo aan form 3 marka waxa jireen laba kale oo marka ay ka dambeeyeen oo ku soo jireen maartay linka marka abay marka waxay ku ahayd culeys inuu fiiska bixiyo especially markuu ka dhacay maartay doorashada ganacsigan maartay uu aad hoos ugu dhacay marka aniga marka waxaan laki ku noqday waxa jiray scholarship ay bixiyeen Captain Musa Bulhan iyo Hussein Maalim oo marka ay mudanihii loo doortay Garissa Central waa gartay marka waxay dhaheen qofkii number 1 qaato throughout overall waxaan ka bixinay the whole year sanadka dambe all of it waan ka bixinayna sax marka aniga marka waxaan qaatay overall number 1 form 1 I mean sorry form 2 from first term ila third term so marka waxaan helay marka in laga bixiyo the whole of form 2 fiiska form 3 waxa laga bixiyay Captain Musa Bulhan asna balan buu qaaday qof alla qofkii bas noqdo inuu ka bixiyo sax form 4 markaan gaaray ma helin scholarship kale laakiin iskuulka ayaa iyo galay inaan iska joogo waxa hebna sax wuxuu ahaa Ibrahim Mude oo ka imaaday marka wuxuu ahaa Wajir Yamani laakiin wuxuu qof oo ka imaaday Nairobi marka waxaa noola keenay as a new headmaster marka fi asana يعني قاعد نسكول معايا وحاها نمبر 1 نمبر 2 marka aad muxuu rabay inuu soo keero ilmo maartay oo jaamacad tagi karaan marka form 5 markii form 4 ambuge aan ku guuleysay form 1 I mean distinction 1 ma yahaystay I was the best again in the district even the whole province ana u horeeyay marka waxaan helay school oo dhaho Mwatate High School ku yaalo Kwale laakiin muxuu ahaa macallin Ibrahim baa dhimaya ilmaha kuwii uu fiican Garis Wajir Mandera waana isku keenno aan keenno one class in Garissa so marka kuwa marka ka keenay Mandera kuwana wuxuu keenay Wajir iyo anako Garis laga keenay wuxuu keenay marka one group Garis High School marka that group eventually almost 20 of us waxaan galnay university waa gartay waxa uu talagalay waxaad sax intaad waxbarashada ku jirtay horta doorashadana aabaha uu ka qayb galay loo shubtay waxna uu sheegay aabahi wuxuu ahaa ganacsi imaam buu ka amsaydka wuxuu ahaa ganacsi dukaan buu u qabay marka dad buu aad wuxuu qof aad maartay deeqsi u ah xoolo badan buu yulaha dadka marka ka umaadaan uu waxay muusin jiray walaalihiisa iyo maartay kuwa isaga dhasheen iblaha oo badal uu qabo markay ala markay u maadaan wuxuu hayo siin jiray marka dadka marka waxay dhahay marka ma sheeqo ma noo istaagtay kansar ku dooran leena sax marka ay ka maanta ku dhaliyay maartay inuu istaago bas uu istaagay way wala doortay ma marka wuxuu ahaa nominated iyo ku hele marka labaadna wala doortay marka markuu soo bartay wuxuu marka again marka saddexaad waxaan geliyay doorashadan kale oo iyadana tartanka ah marka nasiib daro qofka uu la tartamay wuxuu ahaa mudee dhaqan galaal Allah na haystay aftigay wuxuu duqan wuxuu ahaa chairman Garissa County Council marka berigaas 70s 80s Kanu wuxuu ahayd moota xisbiga oo wadanka ayaa jiray marka xisbi wuxuu ahaa DC-ga iyo PC-ga maartay ayaa maamulayeen doorashada ma jirin maartay guddi doorasho oo madax banaan dhiyaha maartay iyo macallimiinta ayaa laga dhigay maartay presiding officers ay ka marka keenay maartay natiijada marka DC-ga marka ku dhawaaqi qofkii loo doortay ama MP ama councilor bas marka duqa aad buu wuxuu ahaa very popular waa la jeclaa dad badan baa maartay u coday laakiin markii aan galabti oo la sheegay results-ka markaan imaanay meeshii Garissa National Library yaa waxaan maqalnay rumors duqa laga shubtay mje qaan baa yaa meesha la siin doona
بس مش في مرة كل سنة كيد مركا 83 83 كدب نيجب كدورشة سو كقاعدة سامين يعرف يعني عشان خدنا هذه دين بدن بوجري ومارتي حتى أبتجس عثمان راسي يعني عثمان محمد عثمان راسي عبد الكريم أبيس وأصلا أوجيه عبد الكريم ذكي واي العبنا مكو يقعد قدامي مكو بحين ويانا حسي ماركي بروت وسكلها وكلها جالس يبحي حالضه وسوقي يسبحي مارتي دينتا marka sirunti waxay maartay u yeelatay alabta damage ana wasaasan qoway waa gartay xaaladiisa caafimaad way ka sii dartay waxaan filayaa intaad wali iskuulka gaarsaad ku jirtay hospital gaarsa ayuu imaaday qaliin ayuuna ku dhintay isagoo qaliin lagu sameynay waxa ku dhacday horta of course wuu jiraday markii laga yaab cudurka inuu qoraan qabay laakiin inay waqti uu markuu dhacay inay hadan soo baxday iyo oo kale aan ma garanayno laakiin dabcan duqa waxaan u saday waxa maartay dib u maartay hoos buu soo gurtay maartay caafimaadkiisa marka uu xal keenay gaarsa hospital marka waxay in la qaro 1986 waxay ma jiray surgeon once every 3 months maartay ama 4 months ma jiray waxay ma jirin maartay dhakhtar fara badan سيادة أجران بريء مجرن مركز عدو لسه اللي يقول المركز وأنا سكت مركز ماني صو حلقة اللي مركز لست وإنه لا قرأ مركز وحنا وتجري مركز استارك وتجري أنا مركز وحنا وتجري جالس هاي سكول وأنا حاسس مركز ماني قميص با يا لقراء مركز على بعض يجري مركز بس بناكم أصرف لي زناسك أو ماشان مرتي patients أي فلسطين ولا هذا بس almost لو صار مركز يود تدارن هدي أنا كسب بحسن وعي مرتي operation بري سن متعدد وحلا وحي شيء ما نقرن لكن كنت مثلا أنا قاطع بس سود ما كل إنسان دي سيد ونشيء أي شيء أم فولي لكن أي واحد برشة وكالة تكرمة حيري هذيك جامعة دقل سيوت ما كهارين سكولك لكن ورالك أو كوين markuu bogo fanfo shaqo raadiyo maxay ilmaha dadka waa inuu caawiyo waay markaasi ayaan yeelnay abookay qaliif sheekh saaq oo hadda county director of education ka Eldoret ayaa asagu markuu bogo fanfo wuxuu noqday UT waxa la dhaho untrained teacher soo martay inuu ku sii qaato aniga markaa waxaan garayaa jaamacadda laakiin hadda nasiib darro amin nasiib because wuxuu qaatay ducadii waalidkiis هذا أمانك عدينا المهينة أسأل أو أخذ بدن حسبنا PhD ما شاء الله وحنا قرار مستس صح مركا حنا قد غف ما في مركا هي don't go to school هسي أدين هاي سكول مسائل level آخر المهم شغل بالله دردارك أصلا أديك أو شيء أنا شيء هو نقطة واقرتي أنت هذا امتحاناتك سكرتيري دمات سودوا حال بوحيا كوساسك الروا مرة بين إن هذا براتوري مهن شرعية معلقة كوب بوحي أما كوب ديرجري برتا دي أو أبيه دون نوران لها I don't know whether إنه أقولنا إن ما تسوبيه له ما هيش ما تي تدبج جرا قبو شرعيا أو أن الإسلام إن ما تلبرين مركا لكن وقتي أنا هن from 6 مركا يا وحن بريء بحيه الموت university was free هذا كلام بهن university هو free وحنا نسنجري allowance every semester مركا فهم بحيه أنا مركا وحا معلمين تنبان قاني محيلي أدركي وحوها district education of Sadio Garissa عبد الله حج عبدي محوها ما هذا أحمد أذن هو أصلا أنسلم من برا معلم بوها marka arjil inta arif must orga weyn ana marka macallin ma aqoon marka engineering medicine iyo waxaan isku badan waxaan akhristo on bachelor of education Moi University bachelor of education KU bachelor of education Arabi yaan qortay marka bariyana waxa uu qori jiray pencil oo waatay waxa magaranay baalan oo ay magnetic reader oo waan Lucio pencil especially ama ku bixiso marka class master wuxuu ahaa mid oo ka imaaday Ugandese buu ahaa
Joseph Katebwa markaan u geeyay uu tirtire my first choice marka asagoo asamad ku qoray Bachelor of Laws Nairobi University waa gartay marka Nairobi University marka law waxay ahayd 17 points anagana 10 points amaasa yaan rabaa inaan helno sida aan ku helno Bachelor of Arts maanta kon hoose inaan galno balaakiin engineering iyo medicine iyo law waxay ahaan qof weliba used to have any hope inaan meelaha gaari karno markuu ii buuxiyay law wixii marka soo akhriso ka soo you have to go and work for it hadwaan ku qoray bas waxaan helay 19 points ما شاء الله الله point baan ka tafkiida kadib Nairobi University dimaasay loo ayaad samaysay waxbarasho wagaasay jaamacadda ka marka jaamacadda marka imaanay sidaan ku sheegay dadka muxuu hal school oo ku yaal Nairobi wuxuu keen jiray inta ka imaato the whole of Northern Province waxaan arkaysaa Alliance High School 40 iyo 50 iyo 60 baa ka imaatay 10 baa joogta faculty of law 20 baa joogta medicine meel soo buuxan marka adoo marka ka imaatay Gaaris yaa markaan joogno waxa aan about 200 200 maartay caruur ah yaa suubin law marka aan ka imaaday Gaaris hal akhar ka imaaday Marsabis oo aqoon dhaho Kandile mid ka imaaday isiro oo boran godana looyo godana iyo mid ka imaaday Turkana afar iyo shan waxay ahayn oo marka uu horeysay soo galay law marka waxaan soo bisan marka our own club oo maartay waxaan jiray the club of the northerners marka waxay aad waxa shaqa akhris aad u adag oo laakiin markii aan gaaray secondaire waxaan ku guuleysay inaan noqdo marka qofkii ugu imtixaanka ugu horeeyay oo helay number 1 marka waxaan helay marka bila sharaf magacayga marka waxa loo soo qoray journalka nation waxaan liisiyay check oo shan kuna shilnay marka kadib waxaan si watay marka akhriska waa gartay qofkii ugu horeeyay oo arrimaha sharciga sameeyo gaarsa ka imaadaan waan hayaan ahaa waa gartay kadib aan arrimaha waxbarashada rayna soo gabagabay waxbarashadu waa dhameysay waxaad bilowday in hay'ad la shaqeyso taas wax yar nooga tababar markaan bogay Nairobi University faculty of law waxaa jirta marka tahay secondaire waxaa subinaysaa internship waxa la dhaho practicals وأنا محكمة لها لا شقي صوتي سدح بلود أبرد تصير محكمة لها شقيان مركا أنا كمركا إنسيرو أن جوجل أجي نيروبي وحن دورت جارس بانتجي وحن كهو شقينا مارتي ماجستيرتها مركا كيس ولا يجري حتى لما راح يجري فايل بودي يجري لي سوقر جاجمنت كا مركا كذب عدو يسيح يجري مركا تاي وحاوي براتيكولز مركا تاي ثانيانا أبوه هيستو جامعة وأنا مركا internship على privilege على سبب اللوفام مركا اللوفام سمركا قار إيمان جيرين حبسك أنت إمادان جامعة دين of the faculty of law يلاهن يلي جيرين نسي top 10 كابلان أسراتون يو هامilton هازون ماثيوس هذه مارسي لوفامس كا عنك waxay qadan jireen in top 10 kuwaas marka way jireen interview أنا مركب اللي قاتي إن interview هذا كون كله لكن مركب أنا مقام من جاي إن هذا مشوا كشقينا مع إبراهيم حتى لنا الصومالي وأنا أوجا أو مارتي شرعي برتي أو مارتي شقينا مركب أصلا مركب يعني وها privilege كتب مكان الميستي أنا كوجل privilege يا وحان هلا شق أو منيرة هي مركب waxay ahayd markii aan bilaabaynay Kenya School of Law inaan bilaabno September 1st laakiin waxa nagu dahay degree-ga in la siiyo on time marka bil baan ka dahanay inaan galno Kenya School of Law so when the whole year ma tayaa marka naga dhume oo waxaan leeyahay marka you have to come back next year 1st of September halkaas sana waxaan leeyahay marka gaartay Nairobi Jokeri shaqaan hay marka NGO la shaqeynay oo ku taalo waxay ka shaqeynayeen luuq buulaxawo ilaa iyo Mandera waxaan u ahaa philosopher kadibna waxaa lagu promote gareeyay inaan noqdo deputy project manager marka shaqadan la markaan helay waxaa liidiri rabay Bangladesh maxay waxaan suubineynay waxa la dhaho
credit resource management lacag baan u qeybinayna maartay dadka ganacsiga ku bilowdaan ku bilowdaan بعد وحالي ديري مركا هذا بنغلاديش oo aan soo barto waxaan dhaho Grameen Bank Montreal Professor Mohamed Yunus intuu joogay last week oo economist oo helay Nobel Peace Prize marka ma haysan marka passport Nairobi maade waxaan u tagay marka Ibrahim aan ku dhimaatay caawi inaan passport helo waxaan u jeedaa meeshan ido Bangladesh بس في سلاف ما داقة شو شغالين إنجيو وكل ميسا لورين بقوا بحنا سومالي كوميدي أنا يحجوا أحمد ناصر هذا مركز هذيك قف سد حد بات من هذا مركز ما لا سيادو أغلب ما مركز سو سكلاف أنا شغال شيء من ده مركز بس شغل سيء حن مكان هذا دبت بروجكت مانجر وعن هذا كنت مكونشين بشي أصلا من حقوق بلا راتني شنكون هاف وش بلا لكن واسكو قرادة shaqada horena ka tagay marka siis aan u bilaa marka shaqada loo rimada aad ba marka ugu farxay waxaan shaqeynaa marka qof maartay he was my mentor waan aad uga dambeeyo wuxuuna isiiyay a lot of freedom ina maartay shaqo aan rabo aan qabto hatta qaar oo maartay aan bilaash ku qabto sifa aan maartay ku barto ama aan ku noqdo aan ama maartay aan ku helo experience kadib muddo intaad ku jirtay shaqadaasi qareennimada waxaad bilowday inaad ka qayb qaadato guddooyinkan kala duwan like kuwii referendumka sameynayay iyo taasi fikradaasi iyo inaad apply garayso maxaa keenay marka hore constitution waxa way horta for a long time illa from 1990 waxaa jiray a lot of olole maartay lagu jiray in la bedelo dastuurka Kenya maxaa yeelay wuxuu ahaa mid oo aad dadka maartay ku qabtay ona qaban freedom ma jirin marka dawladdu marka waxay marsay sharci la dhaho Constitution of Kenya Review Commission oo maartay guddi loogu talagalay inay dib u habeeyaan dastuurka marka waxaa jira sida Kenya marka waxay qabsanad 8 provinces noodisa marka waxay ahayd one of them marka si loogu talagalay marka province kasta inuu qof ka imaado ma inay laba qof ka imaadaan mid oo substantive iyo mid oo alternative markaan soo biray interview ana ku guuleystay again waxaan qabi jirnay adaan hay looyerinta Soomaalida waxaan qabi jirnay lunch every quarter waxaan bilayn baa isku keen jiray marka waxaan ku heshay marka ogur xeedin Axmed Naasir inuu apply gareysto oo meesha uu noqdo maxaa yeelay waxaan isaaranay Soomaalida waxay u baahan tahay inuu qof meesha uga joogo marka Axmed Naasir wuxuu yiri aniga waxaan nahay busy ma haysto partner kali marka Axmed apply gashay bas ana apply gareystay waan helay waxaan galay marka guddigaas sidoo runta guddigaasna wuxuu guddi aad muhiim ah maxaa yeelay wadanka dastuurka hadda lagu shaqeynayo ayaan qoraynay marka 6 sano aan ku jiray shaqadaas guddigaas rag culus arrimaha sharciga dalka oo yaash balqay u weyn yahay macallinkaaga jaamacadda ku jira very interesting wuxuu ahaa ana u yara commissionka maxaa gudoomiye noo ahaa Professor Yash Balqay inuu caan u maartay arinta dastuurka iyo si loo qoro marka Yash Balqay wuxuu ahaa macallin Professor Okoth Ogendo waa sana ku ah expert in land oo arrimaha dhulka Okoth Ogendo marka wuxuu baray Professor Gidi Mugai oo marka dambe noqon doona maartay Attorney General Gidi Mugai ana macallin ahaa afartaan marka waxaan ku jirnay hal guddi oo commission marka waxay ahayd wuxuu dhijay mugoran muxuu Yash Balqay wuxuu dhijay Ahmed wuxuu yiri waxa geligaysa maartay awow صح ama yaagreet maxay waa hada kalimaha saddex qof bay dhaxaysaa maartay in terms of generation laakiin a lot of wisdom and advice from all of them especially Professor Gidi Mugai meeshan ku sheegay iyadoo sababtayna qodobada iyo waxyaabaha la isku qabtay fikirkaaga kala ma gaban jirin aniga toos ma hadli jiray dad waxa jira maartay group ba jirtay barigas kanu kuwa ma la wadaan gaar baahan kon oo opposition ka maartay iyo la wadaan ikana gaar baahan civil society wax yar ba jiray oo commissionerska waxa ay 3 commissioner
وحير باجر ومارتي الحدها أنا مركب كواسن كجري مركب إن عكست مركب ما كل فيلم دي أو مارتي أي أنا قالت قدر يمو هو مركي أو مركي لكن أين وقت الدورة شو محل جودي أو 23 إني مركز كل ما أو مارتي أريما حساسي أي كوذا قاميان من ما يهن possible مركب حاجة تحله executive حاله steering committee steering committee أو ما شغالة جودية حبينيسو ما قبليسو ما حبينيسو صح مركب قدوميها جودية دورشة جودية سياسي deputy لaba kale oo 2 deputy chairmans iyo 2 commissioners 1 woman 1 man oo kuwan kale ay doorteen inuu kamid ahaado executive steering committee marka waxa ay doorteen inaan ka noqdo steering committee member waa gartay marka ala kulli hal constitutionka waan sameeyay waan bogne arrin waxa jirta oo maartay aad isku haystay oo arrinta maxkamadda islaamka qaadiga marka waxaan qoray marka report oo aad muhiim ah oo u noqday inuu maartay inuu wuxuu noqday marka habraac inay ka dhigtaan guddiga maxay markaan arkay meesha marayso waxay ahaan evangelical maartay churches yaa waxay bilaabeen maartay olole inay leeyihiin waxay u keen rabaan maartay shariica turida bakdo waxaan waa maaha maxkamad maaha marka waxaan subiyay marka research is Europe USA ما يسمى Europe Asia يا أفريقيا سيدا يا Middle East سيدا أول رقمين محكمتها مالتي إسلامية مركز يسيد مالتي محكمة كينيا قاضي كوتكا تاريخ ديسة سيدا كوي مالتي على كل حال هذه ريبورت أنغري وحنا نقضي ريبورت أو آد لوست عمله جودجا كدبنا ونقضي مثل مرتا سي ماركه اساسي لو سبلنها maxkamadaha qaadiga yaash balqay arintaas markaad ka dhaadhicinaysay wuxuu ku yiri nin dhalinyaro ayaa tahay inaad qof maskax furan oo xuquuqda haye waxa jirta moogta maxkamad waxa jira dad baa jiray oo maxkamadaha qaadiga inay dilaan rabeen complete inay maartay laga saaro dastuurka waa marka waxaan ku guuleysnay inaan ku celino meesha Soomaha إذا ساس يعني حاجة مركز هو constitution كا ما هي أما شرع كستا إنه هذا internal constituency coherence الحديثة إنه يجري مارتي قضب كلام مارتي كهرمانة وهنا مارتي اسكو استشغلنا يعني مركز مليكة حنكوسي human rights كان يدو جبت قضب كلامنا وكيف هذانا كقاعدنا يا مليكرتو marka maxkamadaha qaadiga waxa la sii awood ay ku dhageystaan arimaha guurka divorce-ka inheritance oo maartay dadka muslimiinta oo ay ka rabaan inay martay imaadaan maxkamadda qasab maaha qofka rabo inuu aado high court iyo maxkamadaha gaalada asay u jirtaa laakiin meesha aan ku qornay qofka muslimka oo rabo inuu imaado maxkamadaha sidan baa maanta lagu maamulay qodobkaas adiga ku soo tarin marka waxa jirta marka qodob kale waxa jira oo leeyahay dumarka iyo ragga xaq bay u leeyihiin dhulka equal inay u qaataan sax dhaxal bay u leeyihiin maartay xoolaha ay maartay ay dhaxlayeen inay toos maartay u qaataan equally xalaha de chapter human rights equality marka equality marka ayaa loo si xun loo qalbay hadii oo self la marka intana waxa jirta qaadiga court oo ku leeyahay هذا تاي دمر حالده النص ويلكن حوليه هل سماها انت انا حاجه استقعد في حوليه ولا قف لا اسميه ولا سي ايكوالي marka waa laba qodob oo laba chapter ku kala jira oo iskhilafayna laakiin midda kale option oo laga dhigay marka tan oo taas waxa loo geliyay aan san qowaay in lagu dhabar jabiyo maxkamada qaadiga sax marka hada firs marka qodobkaas waxa jira human rights markii la soo teeyo waxa jirta meel marka la dhigi exceptions yani waxaan aan la soo qoray kudi meesha aan waxa loo ogoleen for example military-ga looma ogolo inay substaan maartay association
oo maartay oo si amal maartay television ama koot oo kale inta isku maadaan ay qabaan inkastoo qof kasta uu leeyahay xaq laakiin hadda meeshan kale waxa lagu daray exception koon ma subin karaan military discipline forces midda kale waxa leeyahay any right oo maartay ka hor imaasan dhaqanka iyo maartay akhlaaqda dadka idana waa mid oo public health public morality ayana lama ogolo marka waxaan ku daray waxa la wixii marka maxkamadda qaadiga awoodiisa dhimayo oo arrimaha ku saabsan arrimaha dhaxalka iyo furiinka iyo guurka ma waxaan ka dhigay exception marka qodobkee dastuurka kaga jirta 24 waa gartay kadib aftay ayaa loo qaaday aftadii ugu horeysay oo la qaaday waa la diiday no ayaa guuleystay 58% Kenyans ayaa diiday ka waxa 205 kadib aftay kale ayaa jirtay oo adiga hogaaminaysay ani waxaan ka marka dastuurka waxa qoray committee of experts ama commission laakiin dadka oo shaqada qabanay oo doorashada wuxuu ahaa guddiga doorashada marka 2010 ani marka waxaan guddiga doorashada jagaha gudoomiye qoladii soo qoraysana waxay ahayd waxa la committee of experts waa gartay 2010 dastuurkii waa loo codeeyay dastuurkan cusub haddaan ku dhaqanaa ayaa la sameeyay kadibna guddigii IEC waqti soo dhamaad IEBC la sameeyay oo dastuurka cusub ee 2010 la imaaday hadana gudoomiye ayaad ka noqotay qaabka gudoomiyenimada aad ku heshay labadaba dad siyaasiyiin oo ka hormaarsan arrimo fara badan ayaa jiray khilaaf fara badan arrimahaas ku hareeraysan taa dad wax noo sheegto horta waxaan qadar waa ilaahay waay oo maxay ilaahay waxa ilaahay ku soo qadar ma waynaysid marka aniga markaba inaan horta aan noqdo gudoomiye doorashada markaba waxaan rabay inaan apply gareysto guddiga oo xuduudaha waxa jira laba commission interim independent electoral commission iyo interim independent boundaries review commission marka tii marka apply gareysani waana soo digeysay ani iyo waxa ku jirnay muxuu ahaa Sharaawe waxa ku jiray ambassador Saleh Ramadan marka waxa ay yeereen afay iyo faram calim waxay dhaheen ka bax muha iska dhaaf beelisan ninkan baa ka weyn oo maartay adiga shaqada wadata shaqa leedahay waxyartay step down don't apply for I mean don't go on so waan marka marka aan qoray selection panelka inaan maartay iska aad ka baxday tartanka marka markan mukayna sibdar buu helin مثلا صالح حاحل كوميشنر شراوي صح أنا مركب وحان ربي وحان كجري أو وحان حريف عن هذا وزير كعدالة ما ذكروه وإذا صاحب الأهد محمد إبراهيم هو my partner صح مركب مربى أهد من سفر وطة محبوب معنا حوها PS مركب وحال لقيت دايركتر بورد oo maartay u xirsaran arimaha biyaha marka kadibna id markay noqotay judge oo waxa lagu transfer gareey inay noqoto minister for justice markii ay dooranayeen guddiga doorashada oo ku meelgaarka ah gudoomiyaha marka in kala doorto wuxuu ahaa Cecil Miller abiis wuxuu ahaa from Guyana laakiin hooyadiis waxay ku yaa marka barigaasna 2008 2009 2010 aad arrimaha ma qabiilaysiga especially jilwada iyo kawida iyo maad kala jinka aad buu maartay xuma marka magiciis markii la keenay baarlamaanka way codayeen marka waxay noqdeen half farmaan ayaa marka guddi ka ahaa yaa marka wuxuu yiri wuxuu amre inay dib loo noqdo ha bas markii soo arfsad gareey anoo meeting u socdo ay marka iyirtay mada karwa ay tahay waan heshiilana anaka iyo ODM qofkii maartan ku heshiilana marka waxaan raadinaynaa maartay dad oo marginalized community ka imaadeen oo aan isku ogolaan karno marka adi iyo dadka aan hadlay apply gareeyay soo dhigan sax beesasa markaan ku apply gareeyay waan ku helay guddiga iga qaad imtixaankana waxa gudoomiyaha Cabdi Qaadir Xuseen
oo MP for Banera intaadan interviewga aadin waxaa ku yeeray xiriirlaalihii guud dalka maya madaxii maxkamadaha dalka shaqo kale oo waxaa lagu siiyay waxay ahayd markii aan suubiyay applicationkaas oo aan dhigtay marka journalka marka lagu soo qoray dadka oo maartay dadka apply gareeyay iyo kuwa maartay loo soo shaqadiis lagu suubiyay oo marka interview loogu yeeri doono ay marka koosan ku jiray marka nin kasta uu ogaa marka inaan interview u jeedo Khamiista oo baarlamaanka aan leeyahay marka isniinta ay marka chief justice-ka uu yiri waxaan markaan uu madax xafiis kaal xafiiska telefoon u jeedo imo marka waan soo orday marka xayri waan ka fogeen marka xafiiska aan imaaday waxaan arkay laba judge oo laba qof oo judge noqon doonaan oo laakiin marka ka soo bixina xafiiskiis ilaa marka waxay saxeen buugi maartay judge-mada bacdi waxa loo diray inay soo qaataan wixii maartay xirin jiray waqtiga judge-ka bas marka meesha aan gal wuxuu yiri Axmed waxaan kugu subinay vetting waxaan laga dhigay judge marka waxaan rabaa inaan saxiixdo buugaas dharkaana waxa ka qaadanaysaa roomkaas isku diyaari Khamiista daarashada State House waxaan ku yiri marka diyaaru ma ahayn tan application ma qorto IIC oo soo haya midda kale waxaan ku yiri time aan ku soo fikiray sax maxaa soo fikiraysaa waxaan waa arrin aad fiican waaye adiga iyo maartay iyo family-ga iyo cidiina dadka ka imaatay ayay u tahay sharaf هي سلقي متاعي منطقي وحنا صادق مركب وحاش سوى أحمد ناصر صح وإليه هي ماشي خذ هذا ورسم صنف فيش خذ هذا حنا أكيد حنا لاحظ محمد إبراهيم وأصلا مركب حجاج وآدم أودم أسابيع يو أيزاك من الأولى أي كان حيدين مركب عسكوسو خلاف وقت كلا يا كلمة أنت هذا لكني حبي خذنا بس هو أنا قلت جي وأنكون نقضي هنقول هي I'm sorry my lord marka bi shaqadanaydo tan kale oo aan soo interview-ga yaan isku nasiib ku heedo waa gartay bas wuxuu yiri good luck bas waxaan ku yiri hadii aan nasiib leeyahay waan ku ada dheeran doonta waxa yiri waa shaqo oo maartay u baahan in lagu dhaariyo Khamiista markii aan lagu dhawaaqana next week I think yani maad in lagu dhaariyo aniga commissioner-kayga marka dad baa jira dhixii maartay malaha waxa shaqada waxa lagu siin rabay in laga reebo tan kale wallahi Allahu a'lam bartaariga ma I cannot say why it was that way bogaan waxaad ku sheegtay waxaad oga hadashay chapter-kan hay poison wax kasta lagu siiyo waxaan ka waday qood samaysan oo kale maya waxaan ku waday guddiga doorashada especially gudoomiyaha guddiga doorashada صح yaa waxaan dhahay waxay tahay poison chalice waa sun waay صح maxay yiri si kasta aad subiso marba hadii aad ku dhawaaqayso doorasho natiijo oo weli wadan oo maartay sano kale oo hada qabiilaysi oo aad maartay violent hadii aad taagan tahay oo aad mid sheegay inuu mid kale u guuleystay 50% ka kalena ay alku qadayeen صح marka si aad uga baxsani eed ma leh labada dhinac ha marba hadii aad iga tahay qof sheegi awooda u leh inaad ku dhawaaqdo madaxweynaha dadka fiirsan hayo oo markaa kali inaad shaqo una qabanayso waxay maleynayeen ila maartay qof cid kale ay adigu مسموس كوسبين أما ما في العك قالته مركب حاول يرين أد ما شغل حاول أد ولي بدن سيرته